بسم الله الرحمن الرحيم دمان شعبك الصوماليات waxaan rabaa inaan la wadaago in maalmahan dambe ay xukuumadda dadaal badan gelisay sidii loo xalin lahaa kala aragti duwanaanshaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee ay qabaan qaar kamid ah dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale ka ra'iisul wasaare ahaan markii aan kalsoonida weydiisanayay golaha shacabka waxaan ballan qaaday inaan dalka gaarsiiyo doorasho loo dhan yahay oo jawi nabdoon ku qabsanto kulankii aniga iyo madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye aan ku yeelanay magaalada gaalkacyo waxaan isla soo qaadanay inuu kaalin ka geysto wadahadallada lagu xalinayo tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland waxaa marar badan ku celceliyey in ay albaabadeedu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta aana diyaar u ahay had iyo jeer inaan tixgeliyo aragtiyada kala duwan ee la xiriira fulinta heshiiskii doorashooyinkii abraacidii lagu heshiiyey sidoo kale socdaaladeedii aan ku tagay maamulada koonfur galbeed puntland iyo galmudug waxay qayb ka ahaayeen dadaaladii aan ku doonayay in dalka doorasho loo jiheeyo wixii tabashooyin ahna si xilkasnimo leh in looga wada xaajoodo shacabka soomaaliyeed waxaa maanta muhiim u ah in la xoojiyo dowlad dhiskooda iyo horumarka ay xaqiijiyeen sanadihii la soo dhaafay si taas looga guulgaaro oo 4 sanaba mar ay doorasho daafuran dalka uga qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyadda loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka soomaaliya waxay go'aansatay in la guda galo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladeyn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho 17 September 2020 aad ayuu u mahadsantihiin billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh